السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دلمانتين واني السلام يا ميل والبو جوجتان يا غور والبايدين تهي وبرادر كيني aad uga barateen salaan iyo baridin kadib wuxuu idin hayo in markaas idin la soo wadaago. Maanta waxaan idin la wadaagi doonaa sheeko aad u cajiib ah oo adiga tusaale ku noqon doonto ama idinka tusaale idin noqon doonto. Sheekadaasi ayaan maanta idin la wadaagi doonaa aadna ka faa'iidi doontaan khibrad aad u weyn aad ka faa'iidi doontaan insha Allah hadii waa la idmo qof walba oo hamile oo macnaha doonayo ama meel dheer inuu hiigsado rabana markaas uu ka faa'iidi doono. inta sheekada soo galin hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay aad baad ugu mahadsan tahay. hadii aad hore noola joogtana sidoo kale aad baad ugu mahadsan tahay. waxaad leenahay dhamaantiina soo dhawaada inta hore noola joogtay iyo inta hadda nagu soo biirtay. fiidiyogani ha ka ilaabin inaad noo like gareyso oo aad like noo like gareynta noo like gareysan waxay noo noqonaysaa dhiirigelin. aad baad ugu mahadsantiin. haddana igu la soo dhawaada insha Allah. asxaabtayda qaaliga ah intaas kadib markii aan dib iskugu soo laabanay maanta sheekada aan idin wadaagi doono waa sheeka idinka aad ka faa'iidi doontaan ama hordhac sidaan idinku soo sheegay qof walba oo hamila ama qof walba meel hiigsanaya in markaasi uu gaari karo hadii uu macnaha tilmaamahan ama sheekadani uu kala baxo waxyaabo badan oo markaasi asiga faa'iido u ah ama idinka faa'iido idin ah. sheekada ayaan bilaaban doonaa anagoo idinku dheereynaynin waan idin soo markaasi qatami doonaa ama waan idin kala dhigdhigi doonaa si aad idinka u fahantaan sheekada waxay ku socoto halka ay ka bilaabatay iyo halka ay ku dhamaanayso. intaba waxaan jeclahay inaan markaasi aad si tartiib ah fiidiyogana u daawataan oo aad sheekada ila dhuuxdaan macnaheedana aad fahantaan. qisada ama sheekada xigmada leh ayaa waxay ka bilaabanaysaa sida tan. saddex nin ayaa bari waxay ahaayeen dad saaxiib ah. waxay ahaayeen dad iska xamaasha aanan haysanin lacag markaasi naftooda kaafin karta. subaxdii ayay bixi jireen suuqa ay tagi jireen wixii ay soo helaan ayay reerkoodii kula soo laaban jireen. maalin maalmaha kamid ah asxaabtani subax waliba markii ay suuqa ka soo xamaashaan kadib waxay u kala hooyan jireen nin walba xaafadiisii ama reerkiisii ayuu u hooyan jiray. maalin maalmaha kamid ah ayay suuqii ku wada kulmeen. xilligii hore way wada kulmi jireen laakiin ma aysan qaadan jirin waqti ay ku wada sheekaystaan suuqa iyo shaqada ay dadka u kala hayaan awgiisa. balse maanta suuqa waa jabi degan oo kama jiraan culaysadii ka jiri jiray ama shaqooyinkii faraha badnaa ee ka jiri jiray ma aysan ka jirin maanta. asxaabtii maanta waxay heleen teem ama waxay heleen waqti ay ku wada sheekaystaan. way ay wada fadhiisteen nin walibana koobkiisa shaaxa ayuu agta soo dhigtay. wixii la wada sheekaystaba ay sheekadii ay socotay ayaa markii ugu dambeysay waxa ay isweydiiyeen saddexdooda qof waliba wixii uu doonayo inuu noqdo. balse iyaga saddexdooduba waa dad shaqaysta dameeraleyn ah oo dameero leh. yacni suuqaas waxay u yimaadaan bariiska markii ay helaan ama bariiskooda ay ka helaan suuqa in ay reerahoodii kula laabtaan. marka way isweydiiyeen oo waxay isdhaheen bal qof waliba maanta rajadiisa iyo hamigiisa halkii uu gaarsiisan yahay ama nuuci uu doonayo inuu noqdo bal aan iskaga dhacno oo aan isku sheegno. saddexdii nin kamid ah ayaa wuxuu yiri aniga waxaan rabaa guri weyn ama qasri inaan dhisto afar xaasna inaan guursado. midkii labaad ayaa asigana wuxuu yiri anigana waxa aan doonayaa in markaasi aan noqdo qof siyaasi ah ama caana ama macnaha lacag leh inaan noqdo ayaan doonayaa. waxaa isku soo haray labadii nin markii ay sidaa yiraahdeen waxaa soo haray nin kaliya oo la sugayo asagana mustaqbalkiisa iyo wixii uu jecel yahay inuu noqdo. marka ninkii ugu dambeeyay ayaa wuxuu yiri aniga waxaan jeclahay mustaqbalka inaan noqdo madaxweyne inaan noqdo. labadii nin kamid ah ayaa qoslay oo wuxuu yiri adiga iyo madaxweyne sidee ku noqonaysaa madaxweyne? hamigaaga ama rajada aad rajaynaysid waa mid xun taasi kuma suurtagelaysa ayuu yiri. ninkii hadalkiisa halkaasi ma uusan ku joojinin hadalkii ayuu sii watay wuxuuna yiri haddii aad adiga madaxweyne noqoto aniga wejiga waxaad iga marisaa iga madoobay ama wejiga iga madoobay ayuu yiri. ninkii madaxweynaha rajadiisa ahayd markaasi ku tahamayay inuu madaxweyne mar uu noqdo ayaa hadlay. adiga waxaad tiri ayuu yiri haddii aniga madaxweyne aan noqdo mustaqbalka maxaa jeceshahay inaan kuu qabto ama maxaa ay weydiisan lahayd? ninkii ayaa wuxuu ku yiri aniga waxaan ka dalban lahaa
inaad qasri weyn ii dhisto ama guri weyn aad ii dhisto 4 xaasne aad ii guurido saddexdii nin xaaladoodii ama sheekadoodii markii halkaasi ay noqotay meeshii way ku kala dareereen oo way ku kala tageen nin walibana shaqadiisii ayuu dib u raacday ninkii madaxweynaha doonayay mustaqbalka inuu madaxweyne noqdo habeenkii wuu fikiray aad ayuu u fikiray kadibna wuu iska seexday ninkii madaxweynaha ku taamayay inuu mustaqbalka noqdo subaxdii markii oo soo kacay ama waaga uu bariistay wuxuu bilaabay hooshii uu xalay ku fikirayay in markaasi uu ku dhaqaaqo wuxuu waday dameerkii uu ku shaqaysan jiray wuxuu geeyay suuqa wuuna iibiyay dameerkii ninkii wuxuu iibiyay dameerkiisa dameerkii markuu iibiyay kadib lacagtii dameerkii ka soo gashay wuxuu tagay suuq lagu iibiyo saanada ciidanka ama dharka ama hubka ciidanka lagu iibiyo wuxuu iibsaday dhar ciidan iyo hubkii oo qofka ciidanka ahaa qaadan lahaa ninkii wuu dhaqaaqay wuu baxay wuxuu tagay xiro ciidan wuxuuna ka dalbaday in markaasi ciidanka uu ku biiro way u suurta gashay waana lagu soo dhabeeyay ninkii wuu iskaga dulqaatay oo wuxuu ahaa qof markaasi mar walba xaadir ah tababarnimadiisana aad u qaata tababarkana aad u qaata ninkii wuxuu sidaa ahaaba muddo ayaa ka soo wareegatay waxaa loo dalacsiiyey 2 xidigle raggii kale oo ka soo tagay weli suuqii ayay ku jiraan oo bariiskoodii ayay weli bursadaan muddo ayaa ka soo wareegatay ninkii madaxweynaha doonayay mustaqbalka inuu noqdo waxaa loo magacaabay sargaal ciidan ayaa loo magacaabay labadii nin iyaga weli bariiskoodii ayay bursanayaan ninkii kale ee madaxweynaha mustaqbalka doonayay waxaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga waa wasiirka ciidanka oo dhan wasiirka gaashaandhigga ayaa loo magacaabay ninkii heerkaas ayuu gaaray labadii nin weli waxa weeye hooshoodii bariiskoodii suuqa ayay tagaan bariiskoodii ka soo bursadaan xaafadda ayay ku soo laabtaan waxay sheekada sidaas ahaataba ee sheekada sidaas u socotay gunaanadkii iyo gabagabadii madaxweynihii markaasi ka talinayay khariiradda ama dalka oo ninkaasi ku nool yahay ama uu ka yahay wasiirka gaashaandhigga ayaa xanuunsaday madaxtinimada waddankaasna waxay ahayd in hadduu madaxweynaha xanuunsado ama uu dhinta in markaasi ay la wareegayaan madaxtinimada qoyskiisa qof ka mid ah uu la wareegaya ninkii madaxweynaha ahaa wuxuu qabay hal cunug oo ah 10 jir hadduu madaxweynaha dhintana xilka waxaa la wareegaya cunuga 10 sano jirka ah balse cunugani weli aqligiisa taam maaha mana aha qof markaasi xilka la wareegi kara ee maamuli kara dadkan oo idil madaxweynihii markii uu xanuunsaday ee xaaladiisa ka sii dartay ayuu wuxuu amray ciidankiisii ama dadka markaasi ka agdhabaa in loo yeero wasiirka gaashaandhigga ninkan wasiirka gaashaandhigga ah waa ninkii dameerkiisii soo iibiyey doonayana inuu mustaqbal yeesho uu noqdo madaxweynaha markaasi rajadiisii uu ka rumeeyo ama rajadiisii uu ka dhabeeyo ninkii ayaa loo tagay waxaana lagu yiri waxa kuu yeerayo madaxweynaha ayaa kuu yeeraya wuu soo dhaqaaqay wuxuuna u yimid ninkii madaxweynaha ahaa madaxweynaha wuxuu ahaa qof markaasi iska xanuunsan saasaantiisa ama dadka waxa ay ka dareemayeen in markaasi qofkaani uusan ahayn qofka kacayo xanuunka haya marka madaxweynihii ayaa dardaarmay oo wuxuu ku yiri ninkii gaashaandhigga ahaa ama ninkii dameerkiisii soo iibiyey ama ninkii mustaqbalkiisu ahaa inuu madaxweyne noqdo ayuu wuxuu ku yiri aniga ilmaha inaan sii joogi doono oo xilkan sii hayo doono ama aan sii noolaan doono waxaan dhalay hal wiil oo 10 sano jira wiilkaasna xilka lama wareegi karo waxaan jeclaystay ama aan jeclahay waxaa tahay adiga qof wanaagsan qof aamin ah qof wixii lagu aamino sidee tahay uga soo baxaya waxaan jeclaystay in aan adiga kugu wareejiyo madaxtinimada inta uu wiilkayga ka soo weynaanayo oo markaasi ka noqonayo qof xilka la wareegi kara madaxweynihii ama imaamkii ama hogaamiyihii markaasi waddankaasi ka talinayay sidaasi ayuu ku dhintay waxaa xilka la wareegay ninkii dameerlaha ahaa ee markaasi rajadiisa ahayd inuu mar uun madaxweyne noqdo ku meel gaarba ha ahaatee xilka lagu wareejiyey kadib hooshii siday ahayd ayuu u kala waday aaminkii iyo kalsoonidii lagu qabana weli waxay ahayd sideedii maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu yiri ama ciidankiisii ama dadka markaasi ilaaladiisa ahaa ama dadkii ka agdhabaa ama ragga la shaqeeya
ayuu wuxuu ku yidhi waxaad ii raadisaan 2 nin oo sidaan ah waxaadna iigu keentaan qasriga ama meesha aan deganahay inaad iigu keentaan dadkii oo soo diray ayaa soo baxay waxay yimaadeen suuqii 2 nin ayaa waxa la yidhi waxay idin yeeraya madaxweyne hebel ayaa idin yeeraya dadkaani way rumaysan waayeen ama maskaxdooda way ka dhaadhici weyday way soo baxeen oo dadkii ayay soo raaceen waxayna u yimaadeen ninkii saaxiibkooda ahaa ee mustaqbalkiisa ah inuu madaxweyne noqdo maantana ah madaxweyne 2 nin ayaa soo hor fadhiisatay markaas ayuu wuxuu ku yidhi 2 nin ka mid ah hebelow maalintii aan wada hadlaynay hadalkii aad igu lahayd bal maanta ku soo celi ninkii ayaa wuxuu yidhi waxay ahayd hadalkii aan ku oranayay ama aan ku dhahayay inaad haddii aad madaxweyne noqoto aad guri ii dhisto qasri aad ii dhisto 4 xaasne aad ii gurido madaxweynihii ayaa wuxuu ku yidhi dadkii la shaqaynayay ninkan wuxuu uu doonayo u sameeya ninkii kale ee labaad ee soo haray ayaa asigana waxa lagu yidhi bal adigane hadal oo dheh sidii maalintii aad dhahaysay ama hadalkii aad maalintii sheegaysay bal noo sheeg maanta ninkii ayaa wuxuu yidhi waan ka xishoonayaa ama waan ka shiixayaa inaan hadalkii maalintii aan ku dhawaaqayay inaan maanta aan ku dhawaaqo ninkani waxba ma uusan ku samaynin diiqadii iyo wasaqdii uu sheegayayna wejiga ma uusan ka marinin sidiisa ayuuna ku daayay sheekadaani ama qisadaani waxaan ka faa'iidi karnaa waxay tahay qofka haddii uu hami leeyahay inuu hamigiisa cidna aysan ka hor istaagi karin oo hamigiisa sida ay tahay asiga u fushan kara ama asiga u samaysan kara balse haddii aad maanta ku tanweyn tahay ama hamigaaga uu ku jiro inaad madaxweyne noqoto ama inaad wax kala noqoto ama inaad macnaha xil qabato ama inaad ra'iisul wasaare noqoto ama inaad noqoto qof caalim ah qof ka hor istaagi karta ma laha ilaa adiga aad inaad iska hor istaagta mooyaane haddii aad asxaabtaada u soo bandhigto mustaqbalkaaga siduu uu noqon lahaa ama jeceshahay inuu noqdo ay asxaabtaada qaar ka mid ah kugu beeniyaan ama ay kugu diidaan ay kugu dhahaan ma noqon kartid macquul maaha ma samayn kartid sidee ku noqonaysaa ha ka qaadin inaad niyad jabto oo dadkan hadalkooda aad ku niyad jabto balse waxaa lagaga baahan yahay inaad adiga maskaxdaada ka dhaadhiciso naftaadana u sheegto halka aad higsanayso inaad gaarayso haddaba qof waliba wixii uu isku dayo uu ku gungaaraa ama uu gaaraa guusheedana wuu helaa haddii aad maanta shay isku tijaabiso shaygaasi haddii uu maanta kaa halaabo micnaheeda ma aha inaanan dib aan u samayn karin waa samayn kartaa haddii aad mar labaad ku noqoto haddii aad imtixaan ku dhacdo micnaheeda ma aha imtixaankii ayaa ku dhacday imtixaanka soo socdana waa ku dhacaysaa waxaa laga yaabaa inaad ku guulaysato balse waa inaad dadaal samaysaa marka shay waliba iskudayga hore waxaa laga yaabaa inuu kaa xumaado laakiin iskudayga labaad ama iskudayga saddexaad inuu kuu tooso ayaa laga yaabaa asxaabteeda qaalida ah waxaan u malaynayaa inaad ila wada garateen oo aad ila wada fahanteen gunaanad iyo gabagabo haddii aad ku haminayso inaad madaxweyne noqoto waa noqonaysaa haddii aad noqoto inaad youtuber noqoto oo caan ah waad noqonaysaa dad badan oo ku daawada inaad hesho haddaa rabto waa heli kartaa laakiin intaasoo dhan waxay kaaga xirantaha oo keliya inaad markaasi adiga noqoto qof asiga isa hogaaminaya ee asiga isku kalsoon asxaabteeda dhammaantiin waxaan idinkaga tagayaa waa brotherkiin oo idin leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankan mid la mid ah intaan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa bashbashii baraara kulligiina waxaan idin leeyahay caafimaad nabad salaama insha allah kulanka dambe